السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ملك soo joogtaan ku soo dhawaada channelkayga Bashir Maxamed Bardar ee barnaamijka Saakiiso Clipska ciyaartooyda aan ku soo qaato wararka ugu xiisaha badan dhanka suuqa iyo wixii xiiso leh ku qotoma dhanka suuqa wararka dhanka suuqana waxa kamid ah ma Cluttenberg ayaa dib ugu soo laabanaya shaqada garsooranimo ee kubadda cagta isagoona ka shaqo bilaabi doona horyaalka Jena Super League kowda bisha March macalinkan ayaa 2 sano waxa uu ahaa agaasimaha garsoorayaasha horyaalka dalka Saudi Arabia markana Jena ayuu ka bilaabi doonaa shaqadii uu caanka ku ahaa ee garsooranimada kubadda cagta warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah kooxda Arsenal ayaa ugu yaboohaysa daafacooda Rob Holding 23 jir heshiis cusub kadib xidigan dhaawac muddo dheer uu kooxda kaga maqnaa tan iyo bishii December waxaana ay doonayaan in daayarkan ay sii haystaan warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Everton ayaa u dhawaanaysa saxiixa daafaca kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Meunier oo 27 jir waxaana ay doonayaan in soo xirigeliyaan warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Burnley iyo England gulhayooda Joe Hart 31 jir ayaa go'aansan doona u dhaqaaqid Major League Soccer-ka ee United States waxaana uu gulhayaan doonayaan in horyaalkaas uu ka ciyaaro xilli ay jiraan magacyo saameyn leh kuwaas oo caan ka ah qaaradda Yurub oo u lacag doontay horyaalka Major League Soccer oo kamid ah horyaalada dunida kuwaas oo ciyaartooyda ay lacagaha ka tabcaan markii ay da'du soo hareenayso warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Arsenal ayaa u dhaqaaqaysa Crystal Palace daafacooda Aaron Wan-Bissaka oo 22 jir ah waxaana xidigan lagu qiimeeyaa adduun gaaray 40 milyan oo gini warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah macallinkii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa saaxiib dhow la ah hogaamiye Ole Gunnar Solskjaer waxaana uu doonayaa in la siiyo shaqada joogtada kooxda Red Devils ka xilli wacdar uu dhigay macalinkan waxaana Sir Alex Ferguson uu macalinkan leeyahay saaxiib dhow waxaana uu siinayaa isagoo kalsooni ah in laga dhigo macalinka joogtada kooxda Red Devils gibaan barnaamijka waa inta tan kulan dambe nabadgelyo